waxaad ku diraysaa xidig haye tiri laba seven xidig waxaad gelinaysaa tiri laba siro xidig waxaad gashanaysaa lacagtaad u baahantay ma $2 baad u baahantay $3 baad u baahantay $2 baan u baahanahay $2 gasho waayahay waddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa ka jiray suuqyada caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale Somaliland jahawareer dhinaca lacagaha la isugu diro moobeelada iyadoo go'aankii u dambeeyey xukuumaddu ay soo saartay ay ku joojisay lacagtii la isaga dhex sarifayay moobeelada dhexdooda ayaa qaar ka mid ah shirkaduhu waxa ay soo kordhiyeen adeeg ay bulshadu kula xidhiidhayaan sariflayaasha isla markaana moobeelkooda ay kaga sarifan karaan sariflayaasha magaalada adeegaasi haddaba ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay bulshada dhexdeeda waxaanan wax ka weydiinay isla markaana aanu ka wareysanay qaar ka mid ah sariflayaasha caasimadda iyo sidoo kale dadweynaha caasimadda ku dhaqan siday u arkaan adeegaasi waa kan barkhad oo arrintaas ka warramaya adeegan 8 saaka ayaanu isticmaalkiisa bilownay si wacan buu u shaqaynayaa saaka meheradayda waan ka tegey anigoo hawl kala yeeshay ayaan moobilkayga ku sarfiyey lacagtu way soo gaadhisay waa lay soo dirayey iyadoo elektarooniga oo Somaliland dadka way u tegaysay anigoo macaasha ayaan meheradaydii anoo hawshaydii soo qabtay ayaan ku soo noqday in annaga iyo Tilison shalay shir baan wada galay shirkii waxaan isla qaadanay inaanu ka cabanaynay 886 oo moodinay in duulimaad nagu ahaa way naga joojiyeen kii horana saadka ayaan uga cabanay saadkiina waa la joojiyay waxay yiraahdeen idinku shaqaysta lambar dadka hada jeer waliba sariflayaasha meeslayda ay arinkan u dan tahay oo awoodi kareen lacagta badan in lacag 330 ya ay qofka loo soo diro oo deetana automatic ahaan la isu sarifayo runtii waa wax aan aad ugu faraxsanahay mar walba shirkadda Tilison waxay eegtaa kobcinta dhaqaalaha dayarta soo koraysa inay ilaaliso annaguna ka sariflaahaan way anaga inagu soo wareejisay anaguna waxaan leenahay waan ka faa'iideysanaynaa dadka macaamiishaana waxaan leenahay had iyo jeer Tilison waa shirkad dadku wada leeyihiin akoonadan cusub ee loo sameeyayna waa mid aan soo dhaweynna ka sariflaahaan on leenahay mar walba abaalka waan idinku haynaa waxay tiri maadaama sariflayaashii nimankii dan yartahaa ee ka cabanayay maalkayagii ama ganacsigayagii ama shaqadeedii baa qaadateen nimankii way noo yeedheen dabeedna waxayna yidhaahdeen warniyow idinku guddooma gebigeediiba lambarkii la odhan jiray 286 imanka lambarkan aad arkayso waa lambar laysiiyey aniga shirkaddu i siisay xataa madaxweynaha hadduu imanka lambarkayga arko wax buu ku soo diri karaa bartaa isagoo jooga ayuusna wixiisii sarrifanaya oo doolarkiisii u jiray markaa waxaa dulmanaa dadkii dan yartahaa ee halka doolar kaga jireen marka la yidhi dee 286 ma shaqaynaysaba dee ninkii lacagtu way kaga dhacaysa isna wuu u baahan yahay markaa waa inuu helaa in meeluu dee kala bixi karo markaa waxay suurto gelinaysaa shirkaddii nin kasta oo sarifla ah oo suuqa jooga gobol kasta tuulo kasta in la siiyo lambar caynkaas dhanka kale qaar ka mid ah bulshada ayaa iyaguna dareenkooda cabiray sheegayna saamaynta uu adeegani ku yeeshay bulshada dhexdooda haddii wax inaga bedelayo mid kastaba aado aniga waxay la tahay inay wax inoo soo kordhay yihiin oo aad u fiican laakiin halka doolar wixii adeegayay buu hay shaqaynayay balse doolarka wixii badan hala madnoocba hadii la doono laakiin adeegii shaqaynayay de meeshiisa yaan laga kaxaynin waxaan u aragnaa saadkan la joojiyay inuu horumarkii Somaliland dhaawacay dadku dalay buu ahaa wax yar loo soo diray meel kasta ayaa ku soo dhacay intaas uu dadku ku socday ugu dambeyntiina waxaan wax ka weydiinay gudoomiyaha sariflayaasha Somaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa sida uu arko hawshan Tilison ka kulanay ee aanu isku garafadhinay ee warbaahinta gashay waxay ahayd inaanu Tilison ugu hambalyeeyno 886kii qaybaha sarifka iyaga qaatay in ay naga joojisay inaan ugu mahadnaqno waana shirkad ay xukuumadda ugu mahadnaqday baankuna ugu mahadnaqay dadkuna soo dhaweeyeen annagoo sariflayaalka kuwina aan soo dhaweynay annagoo taa ku hambalyeeynay isla garanay ayay shirkadda Tilison option kale oo 377 oo macluumaadkeen aan heli doono ay iclaamisay arrintaana waan darsanaa baankana maanta waan iska aragnay ay jawaab naga siiyaan shirkadda Tilison colaad nagama dhaxayso isma diidanin waa shirkad qaran waa shirkad aan hawlahaasoo dhan adeeg u fulinaysa marka xukuumaddu inay waxaan ka raali tahay option ka cusub haddii ay xukuumaddu raali ka noqotona iyada war saxaafad ka soo saaray Cabdulqaadir Codey Home Cable TV Hargeysa